maanta ay taariikhdu tahay 12 bisha shanaad 2018 kalfadhigeena saddexaad kulankiisa sideedaad kooramka anaga waa 148 ajandaha shirka waa akhrinta koowaad hindi sharciyeedka shirkadaha waxaa halkaan nala fadhiya wasiirka ganacsiga waxaan soo dhaweynaynaa wasiirka ganacsiga inuu marka hore ajandaha noo ansixiya marka hore معالي وزير كسودو walaalayaal wasaaradahaan waxaa sharaf noo ammaanta inaanu hor nimaadno golaha shacabka oo hor keenno sharciga shirkadaha Soomaaliya sharcigaasoo loogu talagalay in uu hago lagu maamulo lagu diiwaan geliyo shirkadaha Soomaaliya ee Soomaalidu leedahay iyo kuwa ajaanibta ah laga yaabo ama imaanaysa inay maal gashadaan Soomaaliya sharcigan walaalayaal sharci aad iyo aad muhiim ugu weeye in dhaqaalaha dalku habaysmo shirkaduhu dalka yimaadaan oo maal gashadaan isla markaana nidaam la aamini karo oo hantida ay hayaan inay hayaan oo si nidaam ay ku socoto lagu aamini karo ayuu sharciyeynaya nidaaminaya haddii aan wax yar xuso taariikhiyan ma jiray sharci oo shirkadeed Soomaaliya haddaan wax yar ka idhaahdo Soomaaliya xilliyadii ay soo martay oo ilaa 5 aan ku sheegi karo maamul ahaan mid waa wixii ka horeeyay gumaystaha xilligii uu dalkeena soo galay wixii ka horeeyay dabcan Soomaaliya ma lahayn maamul guud oo dalkoo dhan xukuma magaalooyin iyo deegaano ay madax ka yihiin dad u badan dhaqan ayaa jiri jiray waxaa ku xigay xilligii gumaystayaashu dalkeena soo galeen oo jamhuuriyadda Soomaaliya dalka la dhaho laba qaybood uu ahaa qaybta gobollada waqooyi oo dawladda Ingiriisku gumaysanaysay waxaa laga dhaqmi jiray sharci la dhaho common law oo Ingiriisku leeyahay dhinaca koonfurta ee Talyaanigana waxaa laga dhaqmi jiray sharci la dhaho civil code la dhaho wuxuu kaloo lahaa Talyaanigu commercial code sharci la dhaho ayuu lahaa oo la sameeyay 1865 ayuu lahaa Soomaaliya markaa wixii ka horeeyay 1973 commercial code ka Talyaaniga ayaa lagu dhaqmi jiray shirkaduhu ku dhaqmi jireen oo sharci aad u kooban ahaa ayaa lagu dhaqmi jiray 1973 ayay Soomaaliya samaysatay sharci la dhaho xeerka madaniga ah ee Soomaaliya ayay samaysay kaasoo 3 qodob oo kamid ah shirkadaha ka hadlayay qodobka 502 503 504 ayaa shirkadaha ka hadlayay laakiin si aad u kooban oo hadda xilligan casriga aan lala qabsan karin ayay uga hadlayeen xilliga afraad xilligii aynu dagaalka sokeeye ku jirnay weeye wax sharci ah maynu lahayn waxaan ku dhaqmaynay sharciga kala adkaashaan jaga lowga ku dhaqmay in ninba ninku ka adag yahay wixii uu doono sameeyo waxaa ku xigay xilligan dawladaha ku meel gaarka dib qarankeena aan u sameynayno hadda aan ku jirno oo intii la doono marba la soo maray 2000 ka soo bilowday marba dawladdu awoodeeda inay gaarsiisantaa wali meelaha qaar kood baan shuruucdoo dhami aanay ka wada dhaqan jirin marka taariikhiyan haddaan dib ugu noqdo mawduuca Soomaaliya male sharci shirkadaha lagu maamulo oo buuxa oo la jaan qaadi kara adduunka male samaynta sharcigan oo runtii maskax badan la geliyay waxaa samayntiisa bilowday wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyadoo la kaashanaysa bangiga adduunka oo qayb ahaan naga caawiyay in qarashka ku baxaya la helo Soomaaliya wasaaraddu markii ay wixii ay qori karaysay qortay waxaa lagu wareejiyay company Kenyana iyo Ingiriis oo la dhaho Mahmoud and Gateway Advocates baa lagu wareejiyay oo iyaguna international standard ka dhigay oo nagala qayb qaatay inay hagaajiyaan sharciga
markaas kadib haddana waxaanu u dhiibnay oo proof reading ku sameeyey sharci yaqaano Soomaaliyeed ayaan u dhiibnay markay dhameeyeen wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka ayaan ku wareejinay si iyaduna u hubiso inuu waafaqsan yahay shuruucda iyo xeerarka Soomaaliyeed ugu dambeyntii waxa la geeyay golaha wasiirada oo iyaguna fikirkooda ku daray marka intaas uu soo maray sharci maskax badan la geliyay weeye waxa inta dheer markuu preparation ku jiray waxa la isugu yeeray dhowr jeer oo lala tashaday wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha maamul goboleedyada oo iyaguna maskaxdooda ku daray iyo ganacsatada waaweyn ee Soomaaliyeed intaas oo jeer workshopyo loo qabtay oo iyaguna contribution-kooda ku daray faa'iidooyinka sharciga dee lama qiyaasi karayo sharcigu wuxuu hagaajinayaa maamulka iyo diiwaangelinta shirkadaha wuxuu ilaalinayaa xuquuqda mulkiilayaasha maalgashadayaasha macaamiisha iyo bii'ada wuxuu dhiirigelinayaa ganacsatada Soomaaliyeed iyo soo jiidashada maalqabeennada shisheeye ayuu dhiirigelinayaa baahida loo qabaa aad iyo aad bay u badan tahay haddaynaan sharcigan lahayn ganacsigeenu nidaam ma yeelanayo dadka shirkoobay waxay ku shirkoobaan ma garanayaan haddii qofkii lacagtii iyo wixii maalgashigii la sameeyey cid ilaalinaysa male laakiin haddii sharcigan la asixiyo dowladda ilaalinaysa maalgashadayaashu ma imaanayaan oo ma aamini karaan systemka Soomaaliya haddaan la ansixin dadweynaha iyo ganacsatada Soomaaliya hantidoodu khatar bay ku jirtaa intaan hadda sheegay oo ma jirto dowlad la socota shirkaduhu inay khasaarayaan iyo inay faa'iidayaan dhaqaalaha dalku ma kabmayo shaqo abuurna lama helayo markaa sharcigan sharci aad iyo aad muhiim u ah weeye wuxuu ka kooban yahay 14 cutub iyo 299 qodob mudanayaal xildhibaanada sharafta iyo guddoonka wasaarad ahaan iyo xukuumad ahaanba maadaama golaha wasiirada soo maray waxaanu baarlamaanka Soomaaliya sharafta ka codsanaynaa inay sharcigan oo ku xidhan maalgashigii baryahan waxaan ku dadaalayna dowladda nabad iyo nolol siyaasadeedu waxa weeye kobcinta dhaqaalaha ayaa oo ah kobcin dhaqaale lama kobcin karo haddaan kambaniyadii iyo maalgashigii irid loo furin irid buu furaya marka waxaan codsanaynaa wasaarad ahaan iyo xukuumad ahaanba xildhibaanada sharafta leh inay sharcigan sida ugu dhaqsaha badan noo ansixiyaan aniga iyo tiim aqoon-yahanaabaa jooga oo sharcigan dadkii wax ka diyaariya wixii su'aalaha aad qabtaanna waa idinka jawaabayna waa mahadsanti wixii min xayث المبدأ mabda'iyan wax ka dhihi kartaan waa isqora waa u fasaxantiin waxaan u mahad celinayaa wasiirka iyo tiimkiisa buugga looga hadlayo kambaniyada ama shirkadaha quruxda badan daabacadiisa iyo isxilqaanka faraha badan ee ka dhex muuqda laakiin inta aan yar ee haddaan isha aan marmariyey waxyaabaha yaro xoogaa su-aal aan ka qabo ayaa waxay ugu horeysaa cinwaanka buugga wuxuu ka hadlayaa uu siiyey ama ay siisay wasaaradda ganacsiga shirkadaha Soomaaliyeed marka cinwaanka buugga annaga aan ka maartay ama hindisa sharciyeedka aan yani ama aan ka duulayno waxa gudaha ku jiro iyo cinwaanka waa inay iswaafaqsanaadaan oo shirkadaha Soomaaliyeed inay ka hadlayaan waxa ku jiro cutubyada ayaa markiiba qofka markuu kor u soo qaado sharcigaasi ayuu dareemayaa ee aanan khusaynin shisheeye wax la yiraahdo ama shirkadaha kale ee ayaga ka baxsan kuwa Soomaalida maadaama hindisa sharciyeedku uu yahay hindisa sharciyeed khuseeyo keliya sida uu ka turjumayo qoraalku inuu yahay mid ka hadlaya sharcigan shirkadaha Soomaaliyeed shirkadaha Soomaaliyeed marka aan ku soo koobno meelo kale haddana Soomaaliya miya afwan haddii Soomaaliya ay tahay wixii Soomaaliya markaasi ayaga ka howlgala
laftirkeedu waxay u baahan tahay iftiimin. wasiirka wuxuu noo sheegay inay hadda lixdameeyadii ilaa iyo wixii dalka soo jiray ama maa qabla alistiqlaal shirkado waaweyn ee waddanka jiray ee la yaqaano oo ceelashii iyo shidaalkii ayaga ay ka baareen ee dalka uu u rahman yahay ayaa jiraan oo shell iyo ay ka mid yihiin. haddii la yidhaahdo shirkadahaas oo dowladda Soomaaliyeed meel ay ku kala baxeen oo hadda aan lagu cadaynin wixii iyaga ee waddanka ayaga hanti u yaalla ama kambaniyadii waddanka markuu burburayay ee waddanka uu ka jiray ee iyagana la ogyahay ee gobollada dalka oo dhan ay ku baahsanayeen iyo kuwa hadda waddanka ku sugan ee shisheeye u badan sida annaga ay noo sheegeen hadda ka hor baaris ay sameeyeen hay-adaha dowladda kuwa ka mid ah 350 kambani inay haatan ay ku sugan yihiin dalka ayaa la soo caddeeyey. wasaaraddana kambaniyadaasi waxa hadda iyada ay ka samaysay ama research ama qaabka lala dhaqmi doono waxa gacanta ku hayane badi maanta kambaniyadaasi inay yihiin shisheeye oo xalano keliya inta ka shaqayso 300 ku dhowaad way gaarayaan. qaabka loola macaamili karo shirkadahaasna ayagoo qeexan meesha kuma aanan arag, laakiin shirkado caadi iyo kuwa aan caadi ahayn keliya ayaa tilmaaman. waa kuwa caadiga ah, kuwa aan caadiga ahayn in naloo kala saaran waa garan yani waa ficnaan lahayd in naloo sheego waxa loola jeedo caadi iyo caadi kuwa aanan ahayn. okay, ganacsiga waa import iyo export ama wax dhoofin iyo wax keenis. sharciga keenista iyo sharciga dhoofinta sida ayadana ee investment law ayada ay isu qabanayaan ee wasaaradda arrimaha dibadda kan ay soo samaysay iyo kan ay wasaaradda ganacsiga xiriirka uu ka dhaxeeyane iyagana nooma kala saarna. ma wasaaradda arrimaha dibadda loo soo marayaa wixii maalgashi ah oo foreign investment lawgaas ayay noqonaysaa mid ay ku camal falayaan shirkadaha ee doonaya dalka inay maalgashtaan, mise kan wasaaradda ganacsiga ayaa bixinaysa laysanka. waxaan ognahay wasaaradda maaliyadda inay iyada la wareegtay awooddii kambaniyada oo dhan ee iyada ay diiwaan geliso oo aanan jirin wasaaradda howlaha guud wax awood ay leedahay ee kambaniyada ee dib u dhiska waddanka oo wax laga wareysanayo aanan jirin ee waxoo dhan iyada ay bixiso wasaaradda maaliyadda. maxay isla soo meel dhigeen wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda maaliyadda waxa la yidhaahdo maalgashiga iyo ganacsiga marka laga hadlayo xageebuu aadayaa ninkii doonayo inuu maanta inuu shirkad marka uu sameeyo inuu diiwaan geliyo oo ganacsi ah ama bannaanka shirkadaas ha ka timaado. ma wuxuu la aadayaa wasaaradda arrimaha dibadda? ma wuxuu u tegayaa wasaaradda ganacsiga? ma wuxuu u tegayaa wasaaradda maaliyadda? waidaa kahura aطabaaku fasada almaraqu, haddii kookaha uu batana maraqu waa xumaanaya. yaa iskale awoodda kama dambaysta ah ee bixin kara sharciyadda kambaniga ee isaga doonaya dalka inuu ka shaqeeyo? waa tee wasaaradda xaqa u leh inay ayada lagala xaajoodo ama iyada ay muwaatinka ama ninka shisheeyaha ee doonaya waddanka inuu maalgashto asiga ugu soo hagaagayo. wasaaradda ganacsiga sharcigeeda ay wadataa, wasaaradda maaliyadda sharcigeeda ay wadataa, wasaaradda arrimaha dibaddana hindis sharciyeedkeeda ay wadataa. intoodan waa isku soo wada dhacayaan, waxay ka wada hadlayaan maalgashi. confusionkaasna wixii ayadana ee wasaaradda ganacsiga maadaama magacii ganacsiga iyada ay wadato ama dibadda maartay ganacsiga ha noqdo ganacsiga ama ha noqdo midka gudaha. marka waxaan aad maartay aan u jeclaan lahaa in arintaasi naloo kala bayaamiyo maadaama aan aragnay wasaaradda fara badan ee isla sharcigan iyagana dhinacooda maartay na soo hordhigay. waa mahadsantihiin. waxaan u mahadcelinaynaa wasaaradda marka koowaad hawshaan soo diyaarisay buuggan weyn maaragtay faa'iidada badan u leh shirkadaha
ay ku tiirsan yihiin dhaqaalaha Soomaaliya. Dhaqaalaha Soomaaliya xooggiisu wuxuu ku tiirsan yahay shirkadaha gaarka loo leeyahay. Nolosha dadkuna halkaas ay ku tiirsan tahay marka in la habeeyo oo qaanuun loo helo, qaanuunkaas oo hawlahooda u fududeynaya. Way ku mahadsan yihiin wasaaraddu. Intaas ka soke waxaan meel yar un baan ku arkay oo wasiirku haddana hadalkiisu u dambeeyey uu ka dhawaajiyey in la soo akhriyana way isaga baahan tahay, bal inuu miisaaniyadda inuu noo faahfaahiyo. Su-aalaha ka furanna way tahay in la dhaqan geliyo qaanuunkan oo kale, dhaqaalaha ay uga baahan tahay dowladda iyo meesha uu ka imaanayo, maadaama maaragtay dee miisaaniyaddiina la ansixiyey, inuu aada nagu faahfaahiyo meeshaas. Tan labaad waxaan ku arkay meelo badan oo nabad iyo nolol ay ku qoran tahay iyo dowladda nabad iyo nolol. Anigu dowlad nabad qaanuunkaana qaanuun waaraya oo dalka Soomaaliya la rabo inuu ka shaqeeyo boqolaalka sano oo soo socota waay. Dowladna lama yiraahdo dowladda Soomaaliya aan u aqaanaa, laakiin dowladda nabad iyo nolol wasiirku meesha uu ka keenay ayaa rabnaa, iyo dowladdaas dowladday tahay. Anigu ilaan dowladdii hay'adihii baarlamaankan ka tirsannahay, magacaasna iskuma naqaano. Marka hadduu ula jeedo xukuumadda ama halku dhig waqti gaara soconaya, laakiin dowladda nabad iyo nolol meelay ka jirta anugu ma aqaan. Dowladda Soomaaliyana waa ka tirsanahay. Marka waxaan rabnaa qaanuun waaraya oo ummadda Soomaaliyeed boqolaalka sano soo socota u jiraya, in halku dhigyo koox markaas xukunka haysata halku dhigeeda in lagu qoro maaha. Aniga aragtidayda marka in meelahaasna laga saxanaamisana waa mahadsantihiin. runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda ganacsiga sharcigan ama hindisa sharciyeedkan shirkadaha Soomaaliya soo diyaarisay. Waxay la tahay sharci runtii baahi weyn loo qabay, waxyaabo badan ku xiran, dalkana horumarkiisa kaalin libaax leh ka qaadan kara. Golaha wasiirada xilliga ansixiyeen sida ku qoran waa 19 bisha 2 2018. marka waxaad moodaa in dadaal badan ama effort badan in la geliyey sharcigan 2 bil kadib in la soo gudbiyey. waa rajaynayaa wasaaradaha kalena inay sida dhaqsiyaha ah u soo gudbiyaan, waayo dalkan waxyaabaha uu xayiran yahay waxa weeyaan waa hindis sharciyeedyo, baarlamaankana waajibaadkiisa wuu ka gudun doonaa. marka sida meesha aan ku qoranna 272 pages ayuu ka kooban yahay, 299 qodobna waa ka kooban yahay. marka waxay la tahay in lagu degdegi doono haddii la yiraahdo hala falanqeeyo oo hadeer su'aalaha la iska weydiiyo. waxaa laga yaabaa waxyaabo badan aan weydiin lahayn inay halkan ku xusan yihiin, sida sharciga uu qabana in la soo akhriyo. buugana waa buug runtii aad iyo aad u weyn, laakiin waxaan rabaa inaan si guud ahaan u tilmaamo intaan aragnay ama xiliyadan jungle looga marka laga soo tago xataa xiliyadaha dowladda federaalka ay bilaabatay 2012 iyo dowladihii transitionalka ahaa ee dalka soo marayba, waxaa jiray xildhibaan igu horeyna uu sheegay xoogaa dhankan nitaaqa camalka ama scope-ka ama xuduudaha u dhaxeeya wasaaradaha. runtii waxaad u moodaa xoogaa obstacle ama iska hor imaansho contradiction inuu ka yara jiro, oo wasaarad waliba waxaad malaysaa inay dhinaca ka soo galayso. xataa waxaa jirta sometimes in wasaaradda arrimaha gudaha ay lug ku lahaan karto, oo hore aan u aragnay wasaaradda ganacsiga waaba hoosheeda, wasaaradda maaliyadda sida la sheegay, wasaaradda qorsheynta laftirkeeda, wasaaradda batroolka, marka iyo gobolka banaadir laftirkiisa oo shirkadaha halkan ka howlgala. sometimes waxaa dhici karta in aan wasaaradahaba la soo marin oo gobolka banaadir waxa weeyaan lagala hadlo. marka ma garanayo aniga koley waa dibna waa u akrin doonaa hadduu ilaah yiraahdo, laakiin faa'iidada badan uu leeyahay waa la wada soconaa xildhibaano, laakiin saameyn kalena wuu yeelan doonaa. marka sidaa darteeda waxaan soo jeedinayaa in si mas-uuliyad leh loo soo akriyo oo aanan waxa weeyaan meel iska dhigan, oo qodob qodob xaraf xaraf iyo hab qaanuunka ama hab sharciyeedka uu qoran yahay, waayo waxyaabaha laga hadlayo waxa weeyaan waa wax mustaqbalka hantida qaranka Soomaaliyeed waxa weeyaan ku salaysan. shirkadaha iyaga kuwa maalgashi gudaha ha noqdeen iyo kuwa maalgashi dibad ha noqdeen,
aafooyinka iyo masiibooyinka iyo raadadka xun ay ku raabi karaan dalkan iyo dadkiisana waa waxyaabo hadeerba sii muuqda. marka sharcigan waxaan rajaynayaa inuu dawo u noqdo waxyaabaha soo idil oo hadda kadibna aysan dhacaynin. dowlad ayaan heshiis la galnay iyadoo shirikadda aanay shuruucdeeda iyo aan waafaqsaneen ama aan soo marin hay-adaha dastuuriga uu dalku leeyahay. marka waxay la tahay wasaaradda waa ku mahadsan tahay inay sharcigan waxa weeyaan noo keento. insha allahu tacaala han soo akhrino oo yaan lagu degdegin. waxyaabo badan halkaas ay ku kooban yihiin. aad iyo aad ay u mahadsantihiin. shukran. weydiiye aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. laba xildhibaankii ugu horreeyey dalxo oo si sharaf leh runtii su-aalaha oo na weydiiyey waxaan filayaa inuu ku qancay intii uu axmed uu ka jawaabay. oo runtii dee dalkeennu waxyaalo badan oo inaynu horeynu u soconnaay oo inaynu hagaajinno way tahay, laakiin wax iskhilaafsan dowladda ma jiro. sharci kastana markii golaha wasiirada la marsiinayo shuruucdii horena waa lala fiiriyaa inaan wasaaraduhuna oo kusoo heshiiyaan. xildhibaan fiqi laba su-aalood buuna weydiiyey. mid waxa weeye miisaaniyad ma loo hayaa oo runtii su-aal fiican ah. waxaan kaga jawaabaynaa haa, waa sharci muhiima oo horutebinta qorshaha golaha wasiirada ku jira wasaaradda iyo hay-adaha ama international community-ga ina caawiya iyo dowladduba way u haysaa qarashkii lagu hirgelin lahaa. su-aasha labaad uu xildhibaankuna weydiiyey ee ku saabsan ereyga nabad iyo nolol. nabad iyo nolol horta marka horeyse kuma jiro meel qodob ka mida sharciga kuma jiro. hal meel kaliya uu kaga xusan yahay buuggan oo ah warqadan qornay anigu aan qoray ee golaha wasiirada ugu gudbiyey oo aan leeyahay wasaaradda ganacsiga iyo warshaduhu oo gudanaysa waajibaadka qaran ee ay u xil saaran tahay isla markaana fulinaysa siyaasadda dowladda nabad iyo nolol ee ku wajahan kobcinta dhaqaalaha. waa warqadan anigu qoray. marka halkaa kaliya kaga xusan tahay sharciga qodobada kama mid aha. taasna ereyga nabad iyo nolol waa sharci, waayo halkan markii xukuumaddu keentay barnaamijkeeda ayay ku xustay barnaamijka xukuumadda nabad iyo nolol. baarlamaankanina waa ansixiyey ereyga. marka anna kaasun baan xigtay oo idhi barnaamijkeedii baarlamaanka la horgeeyey anoo ka duulaya sharcigaanaan soo gudbinaynaa, golaha wasiirada soo gudbinaynaa. marka ereygaas halkaas u kaga qoraya sharciga meelna kagama jiro. waa okay, taas waa taas ereygan dowladda iyo xukuumadda waxay u baahan tahay fasiraad horle bay u baahan tahay oo erey bixinta in lagu heshiiyey u baahan tahay. wax badan oo inaan ayay u baahan tahay. ugu dambayntii taasna halkaasaan kaga jawaabay. si kastay tahay kama tirsana sharciga, ereygu kama tirsana. qodobka igu dambeeya xildhibaan qaasim aad buu u mahadsan yahay. talooyinka uu nasiyana waa qaadanay. siduu sheegana sharcigu waa muhiim. aad baad mahadsantihi. mudane guddoomiye, mudanayaal waa mahadsantihiin. waxaan rabay hal kelimo inaan idin xusuusiyo idinkoo mahadsan. wasiir maareeyo waa mahadsan yahay iyo tiimkiisa sharciga ay noo keeneen. sharciga waxa inta loo keenay waxaa waaye in la arko, la fiiriyo, wixii khaldan la saxo, wixii wanaagsan la taageero, wixii ka dhiman lagu daro. intaas waa waxa loo keenay. xildhibaanadana xaqay ugu leeyihiin fikirkooda inay ka dhiibtaan. adinka laftiin wax lidinkugu kordhiya xaqa ay u leeyihiin. kelimada hadda oo fiqi ka dhawaaji dowladda nabad iyo nolol ma ah, waa la qabaa ra'yigaas. xukuumadda haddaad dhahaysaa xukuumadda nabad iyo nolol iska dhahad adinka, laakiin dowladda nabad iyo nolol ma ah, dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. marka taas waa la qabaa fiqi oo ku mahadsan yahay. mudanayaal, waxaan rabaa inaan idin idhaahdo hal kelim. baarlamaanka fasax aan sharci ahayn oo galay. fasax aan sharci ahayn in la aadana sax maaha. waxa waaye xilliguu noo furmay waan ognahay. baarlamaankii waa fasaxu galay
asaa isfasaxay iskiisa usu fasaxay shaqaana noo taal laakiin fasaxa inaan sharci ka dhiganaa fiican saaki guddoomiyaha 3 saac uu inta joogay ka horba korkaasuu saarnaa shaqadii marka waxaan rabnaa in wax laga bedelo waxaan leeyahay waa la isfasixi doonaaye fasax aan sharci ahayn yaa la geli diyaaradii la raacay waa la wada tegey hadda saaka 20 qof aa sii baxaysay marka xoogaa arrintaas annagay dhib nagu tahay waa ka shaqaynaynaa xilligii uu fasaxa geli lahaa annagaa sheegi doona hadduu ilaah yidhaahdo waxaan leeyahay fasax yaan laisgelinin oon sharci ahayn hawshaan u joogno ayaa rabnaa inaan ka shaqayno time tablekiina annaga ku dhex jirno xilliguu fasaxa geli lahaa xisaabta ood adinka iska goosateen oo la iska fasaxaya sax maaha waa inaan fasaxa inta ka iclaamina sifi sharci uu fasaxa lagu baxaa xilligii soo noqon lahaa in aan sheegnaa waay marka waxaan leeyahay yaan la bixin anaa isfasixi doona yaan la bixin intaasaan rabay inaan idiin sheegaana mahadsan tihiin waxa noo dhiman ma badna yaan la degdegin aan sifi sharcina ku baxna marka intaasaan rabay inaan idiin sheego idinkoo mahadsan assalaamu calaykum waraxmatullahi maanta way isbedeshay waqtiga shirka uu furmay iyo shirkii ka horeeyey kalfadhigii ka horeeyey waqti uu furmay isbedelaa socda marka waxaan idinka codsanaa in arrinkaasi lagu buraarugo teedii kale iga raali noqda xildhibaano badan oo halkan fadhiya waxaan ka wada hadalnay waqtiga haddii la yidhaahdo usbuucii waxaan shaqaynaynaa 3 maalin taas micneheed waxaa waaye maalintii 1 saacaan shaqaynay haddii 12 uu furmo taasoo micneheed ay tahay 4 week ama 4 isbuuc markaan shaqayno oo u dhiganta bil waxaan shaqaynay ogaada 12 saacadood keliya haddii 12 saacadood oo hal maalin ah bishii waxay u dhigmaysaa hal maalin inaan shaqaynay haddii bishii hal maalin aan shaqayno haddaan dhahno sanadkii 12 bilood waay fasaxna qaadan mayno jamco ma rabno waa shaqaynaynaa sanadka oo dhan isku filis waxay noqonaysaa 12 maalmood keliya inaan shaqaynay haddii aan dhahno waxaa noo dhiman 2 sano iyo bar aan dhahno waana 2 sano iyo barka oo dhan waa la shaqaynayaa waxay noqonaysaa 12 maalmood oo lagu daray 12 maalmood oo lagu daray 6 maalmood 30 maalmood oo min 12 saac keliya noo hartay taas micneheed waxaa waaye haddii aan dhahno sanadka ugu dambeeya doorashooyinaa la geli doonaa kambeyn iyo waxbaa la aadi doonaa taas micneheed waxaa waaye 12 oo 6 lagu daray 18 maalmoodaa noo hartay min 12 saacadood ah markaan fiiriyey qorshe howleedka guddiyada runtii guddiyada shaqo fiican ay qabteen waa aaminsanahay inay dhammaystiri doonaan shuruuc shaqooyinka hadda u yaalla markaa fiirisid marka qorshe howleedka guddiyada hadda gacanta ay ku hayaan markaas kadibna aa u qiibisid saacadaha annaga aan ku shaqayna la isu qiibiyo waxay noqonaysaa wax muuqanaya ma noqonayso marka saaxiibadeyda sharafta leh xildhibaanada sharafta leh waxaan ka codsanayaa in arrinka saacadda aan aad u ilaalino waana aaminsanahay haddaba isbeddelaa socda inaan nagu dhicin annagoo fasaxyada haddii laga gooyba 10 maalmood aan noo hartaa la dhihi karaa xitaa aniga kulleyba saan calculationka u sameeyo waayo statistically saan u arkay marka waxaan codsanahay aad inaan u dhowrno waktiga oo annaga aan gudano waajibaadkii dastuuriga annagana saarnaa waxay la tahay haddaan usoo noqdo aadan umahadsantiin haddaad ii ogolaateen inaan qodobkaas ku daro oo ajendaha aan ka mid ahayn runtii waan idinkaga mahad celinayaa qodobka kale waxaa waaye sharcigii waa laidin qeybiyey ha la soo akriyo guddiga qaabilsan guddiga ganacsiga ee baarlamaanka noo qaabilsan asagana ka soo shaqeeyo kulanka kale oo aan kulmi doonno ayaa si fiican looga doodi doonaa insha allahu tacaala guddiga lagu wareejiyo haddii aad ogolaataan shirka annaga uu noo xiran yahay